gaaray uu banaanbaxa ka soconayo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka gobolka waxaana la filayaa inuu la hadlo shacabka iskugu soo banaanbaxay kilomitir 4 ee ku aadanaa taageerada khudbadii madaxweynaha uu ku taageerayay maqaamka muqdisho.
maantay waxaa sharaf noo ah dhammaanteen inaan isugu soo baxno marxadda weyn isgoyska nambar 4 innaga oo taageerayna codsigii madaxweynuhu u jeediyey labada gole ee baarlamaanka aqalka sare iyo golaha shacabka. madaxweynuhu sida aad ka warhaysay wuxuu labada gole ka codsaday gobolka banaadir matalaadkii siyaasadeed inay labada gole ay u oggolaadaan. intaas ayaa keentay bulshada gobolka banaadir oo damiirtoodu ay sarrayso shucuurtoodu ay sarrayso inay maanta isugu soo baxaan qaybo badan oo ka mid ah magaalayaasha gobolka banaadir. walaalayaal mudanayaal iyo barwooyin sharaf ayay noo tahay innaga inaan idinkala soo qayb galno bannaanbaxan aad ku muujinaysaan dareenkiina ku aadan magaaladeenna in muddaaba aan lahayn wax matalaad siyaasadeed. magaalada muqdisho waa caasimadii dalka Soomaaliya, waa meeshii ubuucda ama xuduudda u ahayd dhammaan dalka oo dhan. waa xuduudkii aqoonta, waa in qof kasta oo Soomaaliya oo dalkiisa wax ku bartay waa meesha uu jaamacad uga baxay. mijir intii koob iyo soddonka sano ahayd burburka ka hor jaamacad dalka Soomaaliya ku taalla qof ka baxay oo Soomaaliya oo aan uga bixin jaamacadda magaalada Muqdisho. waa caasimadii dalka magaalada Muqdisho oo ku taalla gobolka banaadir. maqaamka caasimadda iyo matalaadda gobolka banaadir waa waxa ay mudan yihiin reer banaadir, waa waxa ay mudan yihiin reer Muqdisho. sida aad ka suratiin in muddo ahba waxaa la hadalhayay sidii matalaad siyaasadeed loogu heli lahaa gobolka banaadir. sidoo kale in la dhamaystiro istaafkaasta ama maqaamka magaalada Muqdisho. dadaaladaas ayaa socda oo lagu raadinayo matalaad gobolka banaadir ah iyo maqaamka caasimadda ayuu madaxweynaha jamhuuriyadda ku dhiibaday munaasabadii furitaanka sanadkii 7 ee labada aqal inuu golayaasha baarlamaanka u soo jeediyo codsi ku aadan gobolka banaadir in la siiyo matalaad u qalanta. matalaadda gobolka banaadir u qalantaa macnaheedu waxay tahay waa matalaad ka weyn, ka macno sarraysa, ka ballaaran matalaadaha dowlad goboleedyada.
arkaan macno badan matalaad kale oo ka mug weyn matalaadaha dowlad goboleedyada dowlad goboleedyadu waxa ay leeyihiin matalaado siyaasadeed hadday ahaan lahayd aqalka sare iyo aqalka hoose ee golayaasha suuragal ah caqligal ah labaatan sana afkalugaha waqtigeedana aan loo tabalsan in la asmeeyo makaanka muqdisho matalaadla'aanta siyaasadeed ee gobolka banaadir ay doonto waxaa kale oo la aqbalay matalaadka horumarisa dowlad goboleedyada in loo adleeyo magaalada muqdisho ama gobolka codka shucuubta ku nool gobolka banaadir iyo codka shucuubta ku nool magaalada muqdisho waxaan halkaan mahadnaq ballaaran uga soo jeedinayna madaxweynaha jamhuuriyadda oo sigalka ugu ah madaxweynaha jamhuuriyaddu xusin madaxweyne ay ku jirto ay ku jirto siyaasadana ay ku jiraan oo golayaasha baarlamaanka u jeediyay codka ku aadan matalaadka gobolka banaadir golayaasha inay askeeyaan sidaa darteed bulshada ku nool gobolka banaadir anigoo hoostooda ku hadlaya waxaan halkaan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha codkii oo golayaasha hordhigay golayaasha annagoo ah reer muqdisho shucuubta gobolkan ku nool waxaan halkaan uga jeedinaynaa inay aqbalaan codsiga madaxweynuhu ku jeediyey waxlugaa way aqbalayaan maxaa yeelay dadka soomaaliyeed ma aha dameerlaawayaal waa dad garanaya waxa ay ugu fadhiyo magaalada muqdisho waxa ay ugu fadhiyo gobolka banaadir waxa ugu fadhiyo dadkoodu way garanayaan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya cod dheer codka dheer ayaan ku jeedinaynaa mudanayaasha go'aano wax ku ool ah oo dhammaan ay u riyaataan dadka ku nool gobolkan inuu dhawaan ka soo bixi doono markaas ayaan rajaynayaa inaan mar kale u dabaaldegno
ugu hambalyeynayna sida aad u muujiseen taageeradeenna ku aadan codsiga madaxweynaha. waxaan leeyahay waa hambalyo, waxaan leeyahay waa nabad iyo barwaaqo, waxaan leeyahay waa xuquuqdeedii oo la helay, waxaan leeyahay waa magaaladeedii oo mar kale soo kacday ufritaankii kurkudooda. waxaan rabaa ugu dambayntii inaan baaq gaar ah halkaan uga jeediyo bulshada reer muqdisho, taasoo aan rabo inaan uga hadlo arrimaha ammaanka ay gacantooda uga shaqeeyaan. waan hubaa shacabka gobolka banaadir waa shacab waxtar ah, waa shacab waxdo oo garanaya cadowgooda iyo saaxiibkooda. walaalayaal, nabaddu waa waxaan anagu kulnoonay haddii qolo gurigoonaysaa ay jirto muqdisho inay amni yahay, haddii ay jirto qolo qalqalinaysay amniga, ilaah baan kala saaranay amnigana sidaana uga shaqaynay in xabiddu u qaateen. waxay tahay inaan gacmaheenna ku hagaajisano dalkeena amnigiisa, gaar ahaan magaalada muqdisho ee gobolka banaadir. ciidamada amnigana aan garab istaagno. waxaad ogtihiin cadowga inuu magaalada muqdisho guddiisa ku lahaa oo kula dagaalami jiray dadka shacabka ah iyo dowladooda. wiilal Soomaaliyeed ayaa ka dhigaya arrintaas, halkaan xabad uga bilaabay, maantana waxay sii wadaan meelo fogfog oo gobollada dalka way sii wadayaan. annaguna anigoo ku hadlaya magaciisa garabkoodaan taagannahay. waxaan kala shaqaynaynaa dalka Soomaaliya bilkiis inuu noqdo meel ammaan ah oo qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah ay si dalkiisu isaga walwala amnigiisa. arrimaha amniga waa ka ballanay, waa iskaashi wax walba. arrimaha nadaafadda magaaladaanu adigii magaaladeedii tahay, qof kasta oo muwaadin ah magaalada ku nool waxaa laga rabaa inuu door muuqda, kaalin muuqata inuu ka qaato nadaafadda magaalada. maamulada degmooyinka iyo shirkadaha ka shaqeeya nadaafadda ha lagala shaqeeyo arrimaha
nadaafadda si aan u helno bulsho nabad ah iyo beled nadiif ah. Higsigeenu waa bulsho nabad ah iyo beled nadiif ah. Arrinta dib-u-dhiska muwaadin kastoo Soomaaliyeed waxaan halkaan uga soo jeedinayaa banorta inuu gurigiisa ou rijiyeeyo ku yaalla magaalada caasimadda ah, guri quruxsada uu ka dhigo, guriga hortiisa nadiif uu ka dhigo, hadday burbursan tahay oo dhiso. Si gaar ah waxaan ugu soo jeedinayaa dadka mas-uulka u helay gurigooda inuu wadallaamiya ay hormariyaan. Iyadoo gurigeeda wadallaamiya ay hormartay iyo wasada maxalliga hortaada yaallaa waa xeeb. Waa inaad nadiif ka dhigtaa halna sugtaa. Taasi waxay ka turjumaysaa muwaadinimadaada. Intaasaan rabay. Waxaan rabaa shacabka inta awoodi karta inaan muujino taageeradeena annagoo halkan ka dhaqaaqayna soconayna ilaa weli waxaad ahmasay. Waa inta awoodi karta, inta aan awoodi karinna waxaan rajaynayaa intii ay awoodi karta inay samayso. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Ada